hortagayso khatar uga imaata. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qaadayso tallaabo kasta oo uga hortagayso khatar uga imaata dalka Iran. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay inuu dalkiisa u diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo looga hortagayo khatar uga imaata dalka Iran. warkan oo aan ka soo xignay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaysa in taliska guud ee ciidamada Mareykanku inay Sabtidii shalay ahayd ay sheegeen inuu Mareykanku ciidamadiisu ay diyaar u yihiin markii loo baahdo in dalka Iran laga hawlgeliyo. wuxuuna Mareykanku u diyaar u yahay tallaabo kasta oo kaga hortagayo khatarta uga iman karta dowladda Iran. Master Maxi oo booqasho ku maraya wadamada Khaliijka oo u waramayay telefishinka Sky News laantiisa Carabiga waxa uu sheegay Mareykanku waxa uu sii wadayaa in uu had iyo jeer garab siiyo saaxiibada iyo xulufada aan ku leenahay Khaliijka iyo Bariga Dhexe si aan isaga kaashano khatarta dhammaanteen inaga soo wajihi karta dhinaca Iran si wada jir ah si aan uga hortagno. xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Washington ayaa cirka isku sii shareertay wixii ka dambeeyay markii madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump uu hoggaanka dalka Mareykanka la wareegay gaar ahaan sanadkii 2018 markii uu Mareykanku ka baxay heshiiskii nukleerka ee heer caalami ahaa ee lala galay Iran isla markaana uu cunaqabatayna dheeraad ah uu saaray Tehran. Washington waxay isniintii aan soo dhaafnay ay sheegtay in ciidii saliidda Iran iibsato in ay cunaqabatayn la kulmayso iyadoo dalalkii ugu badnaa ee saliidda Iran iibsan jiray qaarkood ay 6 bilood ee la soo dhaafay ay wadamo kale oo Aasiya ay bilaabeen in ay saliidda ay ka soo iibsadaan. madaxweynaha Iran iyo saraakiil sare oo ka tirsan dalka Iran ayaa iyaguna ku hanjabay haddii ay Washington isku daydo in ay carqaladayso maraakiibta saliidda ka iibsada ay Tehran qaadayso tallaabo kasta oo ay ku joojinayso dhammaan maraakiibta kale ee shidaalka sida ka yimaada wadamada Khaliijka. General Maxi waxa kale oo uu sheegay in uu ku kalsoon yahay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq in ay muddo badan ay sii joogayaan ilaa ay ka xaqiijiyaan in khatarta argagixisada ee ka iman karta dowladda Iran